الحمد لله أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. أحمده سبحانه وأشكره على جميع نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المتقين جزيل فضله والخلود في جنته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أنار للسالكين طريق سنته، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته. أما بعد أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه في الغيب والشهادة، وراقبوه في جميع أحوالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. waxay kelmadeennu ku saabsantahay insha Allah ta'ala maanta isxasuusinayno maalmaha aynu ku jirnaa qiimaha ay leeyihiin Ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala. biluhu kala sharaf badan, maalmuhuna kala khayr badan, habeenaduna kala fadli badan walaalayaal. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa kala doortay bilaha, maalmaana waa kala doortay. maalmahan aynu ku jirnaa ee bisha Dhulhijja la yiraahdo, 10 maalmood ugu horeeya. maanta waxay maraynaa 3. maalintii Arbacadii bay soo bilaabantay, maanta bishu waa 3. wal maalmaha adduunka ugu fadliga badan leh. 12 bilood sanadku ka kooban yahay. wuxuu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam kama fi hadith Jabir, afdalu ayyam ad-dunya. maalmaha adduunyada waa maalmaha ugu fadliga badan leh. saasuu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam. hatta 10 maalmood ee Ramadaan u dambeeya maalmaha ma ka fadli badan sida culimadu sheegeen. xagga maalmaha marka la eego 10 maalmood baa fadli badan. xagga habeenada marka la eegana 10 habeen bisha Ramadaan ugu dambeeya sanadka ugu fadli badan. sida daraaddeed walaalayaal, maalmahan qiimaha gaar ay leeyihiin. nabigeena sallallahu alayhi wa sallam markuu sheegayay kama fi hadith Abdullah ibn Abbas fi sahih al-Bukhari, wuxuu nabigu ku tilmaamay amal la sameeyo maalmahan amal Ilaahay ka jecel yahay ma jirto oo ka fadli badan. al-a'mal as-salihah maalmahan fadliga ay leeyihiin maalmaha sanadka kale ma laha. faralka la sameeyaa faralada kale ka fadli badan, sunnaha la sameeyaa sunnayaasha kale ka fadli badan, soomka la soomaa soomaha kale ka fadli badan. saadiraadid bay saxaabadu yiraahdeen wal jihad fi sabilillah ya rasuulallah, rasuulka Ilaahay oo jihad fi sabilillah hadii la galo macmalka maalmaha la sameeyaa ka fadli badnaanaya. wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wa sallam wal jihad fi sabilillah illa kana raa'ihatan, إلا قف رجل وحوي جهاد قالي ونفتيسي يحوليه سيبا إسراعيي وحبان عن كلا صور نقنين كاسوم على يفضل بالنين. لكن عمل كلا أو حوي عمل ذن طبعا كان عشان كتشرنا للسماية أي كفضل بديه المجد تبوير النبي صلى الله عليه وسلم. الأعمال الصالحات وعمل كقفك مسلم كاي سمايو isagoo ikhlaas ya Ilaahay dartii u sameynaya, sifa sharciga waafaqsan oo la imanaya. kaasa la yiraahdo al-amal as-salih. albaabada khayraadku walaalayaal waa fara badan yihiin. Ilaahayna subhanahu wa ta'ala waa fara badiyay. waxa laga yaabaa qof in albaab khayr ku adkaado, laakiin albaab kale uu fududaado oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yasiro uu fududeeyay. dadka qaar baa laga yaabaa soomku inay ku adag tahay, laakiin quraan akhrisku uu fudud yahay.
adarkayso masaajidka isagoo fadhiya gelin hore iyo gelin dambe quraanka gowda haya markuu meeladiisa joogo quraanka akhrinaya dadka qaar bay u fududahay inuu ilaahay dhikriyo oo ilaahay xuso subhanahu wa ta'ala oo quraanka inuu akhriyo aanay u fududayn marka aragtaba uu tasbiixsanaya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wa khariya dadka qaar waxa u fudud sadaqaadka iyo masaakiinta in wax la taro kii miskiina kacba gacantu jeebka u gelinaya uu ridaya laakiin waxa dhici karta cibaadaadkii kale inay ku adag yihiin ilaahay raxmadiisa waxa kamid ah walaalayaal abwaabta khayraadka inuu noo faro badiyay si hadii qofka cibaadadaas ay ugu adkaato baab kale oo fudud uu jiro kana haday baabkaasi ugu adkaado albaab kale oo khayr oo fudud uu jiro si baab walo cibaadada kamid ah ay u jiraan dad la yimaada oo cibaado laga haajiray baanay jirin xikamka ilaahay bay kamid tahay subhanahu wa ta'ala walaalayaal acmaasha saalihaadka ay dhamaantood tobankan casho aynu ku jirno fadli aad iyo aad weynaansho badan bay leeyihiin qof walba naftaada eego halka ku fudud ku dadaalo qabso albaabada kale khayrka hadaad garaaci kartana ha ka daalin ee wax way iyagana garaac ma garanayno fursadan oo kale inayna soo mari doonto dad sanadkii hore inala joogay walaalayaal oo tobankii casho sanadkan waxa weeyeen aynu soo dhaafnay inala joogay fursadu ma saamaxin tobankan casho inay soo gaaraan inaguna garan mayno aniga iyo idinka toona sanadka soo socda inaynu gaari doono oo aynu tobanka casho ka faa'iideysan doono garan mayno saadiraadid walaalayaal qofku waa inuu casiimo la yimaada iyo go'aan 12 bilood oo kale waa dhiditanayn adduunyadu saciyeyn oo u rooreynay tobanka casho inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala si dhab u qaabilno quraanka inuu aad u akhrino qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka baray ilaahay inuu fara badan xusno nabigeena sallallahu alayhi wa sallam ahadiista qaar wax la soo wariyay culimada qaar kood iraada sanadkiisu waa jayid inuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam fa akthiru fihinna at-tasbiha wat-takbira wat-tahmid wat-tahlil tobanka casho dhexdooda waxa fara badisaan tasbiixda subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar albaqiyat as-salihat wa dhikriga aadi aad u qaaliya oo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaabaha lagu dhawaado kuwa qaalisan kamida walaalayaal ilaahay in la xusayn fara badan oo takbiirta la fara badiyo dadka qaar kood waxay u moodayaan takbiirtu inay bilaabmayso waxa weeyaan marka maalinta ciid la gaaro Allahu akbar laakiin samaaha bisha dhulhijja markay bilaabantaba takbiirtu waa in la bilaabaa oo ilaahay subhanahu wa ta'ala la xusaa oo takbiirta iyo adkaarta waxa way la farabadiyaa oo waxa way codka sare loo qaadaa oo suuqa marka la joogo xaafada marka la joogo masaajidka marka la joogo ilaahay subhanahu wa ta'ala la xusaa oo takbiirta la akhriyaa ilaahay subhanahu wa ta'ala la weyneeyaa la ilaha illa allah allahu akbar subhanallah walhamdulillah quraanka aad loo akhriyaa waxyaabo fadli badan waxa kamid ah walaalayaal tobankan casho dhexdooda in la yimaado siyaamka in la soomo maalinta ciida marka laga reebo sagaalka casho kale waa la soomi karaa marka maalinta ciida laga reebo sagaalka casho kale waa la soomi karaa haddii qofka u fududaan weydana waxa weeye maalmo kamid ah inuu soomo waa inuu aad iyo aad ugu dadaalo waliba yawm arafa maalinta hoosta ka calaamadso waxay ku beegan tahay maalinta khamiista ee soo socota yawm arafa ومالنتا نبينا صلى الله عليه وسلم tilmaamay soomka la sooma 2 sano lagu dambi dhaafaa 2 sano hada baro fiirso waa fursad aad u qaaliya hadii aad azmi iyo go'aan iminka gaadho maalinta sagaaloodka ee Arafa inaad soomto niyadaada ay ka soo go'do hadii mawdku ka soo gaadho niyada ajab baad ku helaysaa insha Allah ta'ala hadii niyo khaalis oo wanaagsan azmi alla timaadiyo go'aan maalinka sagaalood ee yawm arafa ee 2 sano lagu dambi dhaafayo
inaad soonto haddaad niyada niyeysato maanta oo aad hore u niyeysanin haddii geeridu kaa soo gaadho ajarkeeda waad leedahay insha allahu tacaala haddii ay kuga suurtoobi weydo aad xanuunsato oo aad awoodi kar weydo ilaahay subxaanahu wa tacaala niyada kaa dayici maayo saas daraaddeed walaalayaal waa in aad iyo aad loogu dadaalaa maalinka tobnaad ee 10 casho ay ku dhammaanayso waa yawmu naxri waa maalinka ilaahay ku tilmaamay yawmul xajj al-akbar maalinkaasina fadli aad iyo aad u weynaansho badan buu leeyahay nabigeena sallallahu alayhi wa sallam xadiis Abu Daawud uu wariyay Sheikh al-Albani oo sahih jaamica ku saxiixiyay wuxuu nabigu yiri in a'zama al-ayyam 'inda Allah يوم النحر إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر maalmaha waxa ugu fadli badan ilaahay agtiisa maalinta la yiraahdo yawm an-nahr waa maalinta ciida dadku way halmaansan yihiin maalinta ma oga in fara badan ciiday ku mashquulsan yihiin oo maryahoodaba ka dhamaan maayaan maryihiisu marba sida weegayaayo marba ciidamadu kala rogayay khamiiska iyo shaarkii suwaalka laakiin maalintaasi yawmul hajj al-akbar baa la yiraahdaa waa maalinta ciida maalintaasi waa maalmaha ugu fadliga badan sida xadiiskaasi sheegayo kadib waxa ku xigay yawmul qarr buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinka salka la dhigay la nasanayo waa maalinka 11aad xujaaju baytillahi markay acmaasha u badan maalinka sameeyaan maalinka 11aad ay salka dhulka dhigayna nasanayaan waa maalinkaas ku xiga marka walaalayaal maalinkaasna fasaad fara badan baa dhaca oo wax weey macaasi baa dhacda ilaahay subhanahu wa ta'ala in la xuso dhikriga la fara badiyo oo ilaahay aad iyo aad loo xuso halkay ahayd baa macaasi la sameeyaa way lagu baraarujiyaa dadka maalinkaasna fadliga uu leeyahay cibaadadka waa weyn ee ilaahay subhanahu wa ta'ala jecel yahay 10 casho dhexdooda in la sameeyo waxa kamida gowraca in wax la gowraco oo maalinka tobnaad ee maalinka ciida ah la gowracayo iyo 3 maalmood ka dambeeya gowracaasi aad iyo aad u fadli badan walaalayaal hatta ilaahay subhanahu wa ta'ala uu isku lamaanaysiiyay salaada iyo gowraca fasalli li rabbika wanhar rabbiga uu tukabalay xana u gowrac waa cibaado weyn oo jaliila sida daraadeed qofka awoodi karaya ama qoyska awoodi karaya inay wax gowracaan waa inaanay ka tagin shardi ma qof inuu reer leeyahay hatta isagoo reer bal ahayn uu gowraci karaa shuruudeeda waa in la ilaaliyaa oo waxa la gowracaya waa inay tahay de xoolaha aynu dhaqano geel iyo loo yaari daadii loogu talagalayna waa in lagu gowracaa haddii daadii loogu talagalay aanu gaadhin ma asaxayo kaasina hadduu geel yahay 5 jir ugu yaraan waa inuu yahay hadduu loo yahayna 2 jir ugu yaraan waa inuu yahay riyaha sanad jir ugu yaraan waa inuu yahay idahana 6 bilood waxa weeye waa la qali karaa ugu yaraan waxa shuruudda kamida neefka aan qalaysaa de waa inaanay ceebi ku sugnayn qiimihiisii waxa weeye hoos u ridaya saadaradeed uu nabigu sallallahu alayhi wasallam 4 udhiyada ma galayaan buu yiri 4 tacawaran ee cawarnaanteedu cadahay neefka ishara ee cawarnaanteedu cadahay udhiyada ma galayaan buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam haday labadaba la adayna kaba sii daran taliidate xanuunsanaysa ee maradkeeda iyo xanuunkeedu uu muuqdo cadaan yahay iyana nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam udhiyada ku asixmayso talaangarada ama dhitinaysa ee laangaranimadeeduna cadahay taana nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri udhiyada ku biximayso tawayda ee aan ruuxba lahayn ee aan maraqba ka soo baxaynin taana wax weeyaan udhiyada ku asixmayso neefku waa inuu neef hilib leeyahay oo marka la karsado maraq laga cabeeyo oo wax weey wanaagsan hadduu weyn yahay
taana wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ku asixmayso udhiyada qofka walaalayaal doonay inuu udhiyaysto waxa mashruuca oo nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri timihiisa ayaan waxba ka taabanin cidiyihiisa ayaan waxba ka taabanin timuhu ha ahaadaan ama kuwa sare ama kuwa hoose timo oo dhan jirkiisa ayaan waxba ka taabanin maalinka uu udhiyadiisa qalo markaasuu timihiisana xiraya cidiyaha iska xiraya kuwa hoose uu doono xiraya iyo wixii lamida waqtiga udhiyaduna waa marka salaada laga soo baxo ayaa la qalaya hadii salaada ka hor qofku uu qalo waxa weeye waa qof wax iska qashay uu noqonaya laakiin udhiyadii waxay noqonaysaa bacda as-salaah saddexda maalmood ka dambeeyana ayaa mutashriiq la yiraahdana iyadana waa la qalaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين أينما كانوا يا رب العالمين